Labadii saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo mid ka mid ah safaradii ugu halista badnaa ee aan ku safaro. Aan aaminsanahayna in halkaan ay tahay meesha ugu halista badan geyga Soomaaliyeed ee lagu safaro. Abaaro markay ahayd 2024 bisha November 24 waxaan kasoo dhagaagay magaalada Baydhabo. Waan u soo socday Muqdisho oo isku jiraan 245 kiiloomitir. Runtii waxay ahayd maalin subax ah oo aan filayo inay ahayd sabti inay ahayd aan filayo ayaan baabuurka meesha kasoo dhagaagay. Waan ogaa halista wadada hase ahaatee waxaan go'aansaday inaan u bareero. Markaan Baydhabo ka soo baxaynay isla Baydhabo gudaheeda waxaa la kulannay isbaaro gaaraysa ilaa iyo 4 isbaaro oo dhammaantooda lacag laynaga qaatay. Midka darawalka lacag laga qaatay aan fahmi waayay waxay yihiin. Kadib markaan abaar soo soconay waxaan la kulannay waxaan gaarnay Daynuunay meel la yiraahdo halka oo aan kala kulannay ama haysatay qolada la yiraahdo shabaabka ama argagixisada. Halka markii baabuurka la istaajiyay darawalkii baabuurka in la saarnaa ayaa degay oo wuxuu soo bixinayay canshuurta ama shabaabka dadka qaada ama baadka shabaabka dadka qaada waxaas canshuur maahan. Kadib waan kasoo dhaqaaqnay Daynuunay. Markaan Daynuunay kasoo dhaqaaqnay waxaan la kulannay dhul aad iyo aad u qurux badan, yani aad moodid in la beeray ama in la qurxiyay. Dhul runtii aad u quruban, geedaha aad la yaabaysid siday u baxeen, aad isdhehaysid marun baabuurka ma ka degtid oo geedahaasi ma soo fiirisid oo quruxdaasi maad iska daawatid. Yani indhaha aad iyo aad ugu raaxaysanayaan. Yani dhulka wuxuu ka mid yahay dhulalka ugu qiimaha badan ama dhulalka ugu wanaagsan xagga wax soo saarka beeraha ayuu ka mid yahay dhulkani. Waana sababta aan isleeyahay cadowga halkaa dee loogu beeray si aysan dadka Soomaaliyeed ugu faa'iideysan. Dhulka wuxuu ka mid yahay dhulalka aan weligii camera laga soo duubin ama wax muuqaal ah quruxdooda dhulkaas uu leeyahay aan laga soo duubin cadowga shabaabka ku jira awgeed. Laakiin ma awoodid inaad ka degtid baabuurka si aad quruxdaasi yani u daawatid. Adiga buu isdhehaysaa alla ilaahay hal mar uun ma wadadaan dhaaftid. Iska niyeysan kartaa inaad quruxdaasi daawatid laakiin marna ma aha inaad baabuurka ka degtid oo halkaa aad istaagtid oo aad daawatid amaba geedaha ama gudahaasi dhulka bannaan aad istaagtid oo wax yar jawiga halkaa ku qaadatid. Midaasi marna suurtagal kuma aha. Kadib markaan abaar soo soconay meel aan magaceeda mar dadka weydiiyay laakiin aan ilaaway waxaan kula kulannay qolada la yiraahdo shabaabka markii labaad. Halkaa markaan istaagnay baabuurada dhan halkaas waa inay istaagaan waa qasab. Halkaa waa meesha aan dhihi karo ugu halista badan. 3 ilaa 3 qof ay ku istaagnaayeen meesha. Intaan indhahayga ka arkay laga yaabo inay gudaha geedaha hoostooda ama aan dhihi karo dhulka hoostiisa ay ku jireen qolo kale, laakiin marna ima suurtagal inaan arko. Markaan baabuurka kasoo degnay oo dhammaanteen layna baarayay waxaa halkaa istaagnaa 3 qof oo wejigooda duuban.
laba qori wateen midna qori ma uusan wadinin waxaan la yaabay sida dadkaan dawlad yani dawlad iskaga dhigayaan qofka ku baaraya ama qofka ku wareysanaya ma aha mid qori wata kuwa qori wata ka istaagayaan midkan wajiga duuban aan qori wax buudan story inuu runta wala yaabay laakiin ma arkin story kadib saf baa la inagiyay laba baaruur baan ahayn oo bedwas kala soo dhaganay baaruur kale ayaan inala socday oo isweyshanay baaruurka horteena socda yani dadka markii la baarayay midda koowaad baa loo wacay waa la wareystay midkii labaad baa loo yani baaruurkiina horeysa qaabkaas loo baaray laakiin baaruurkeena anagana markii saf la inagiyay qaybtii aan baabuurka Kenya aan saarnayn safkii qofkii ugu horeeyay ayuu marka hore dadka weydiinayay magacooda iyo halku ka imaaday baabuurkii hore laakiin Kenya markuu soo gaaray waxaan la yaabay yani anigii oo saf ku jiray ay intii soo qabtay oo ila soo dhaxbay aniga waa yaabay yani xaqadan baa isla safka markuu qofkii hore markii yani safkaas hore markii la baaray qof hore ayaa lagu bilaabay qof kale soo xiga saas ah laakiin safkani aniga ayaa shaati inta la soo qabtay ayr la soo bixiyay waa isku dhaxanay yani ugu jirta maanta asle kadib uu istaajiyay oo wax yiri magacaaga u sheegay intee ka imaado uu yiri beedawaan ka imaado inta uu soo taa uu yiri soo socda okay waxa yiri madaxaaga muxuu xiran yahay yani calaamad cad baa ii saarneyd madaxaaga muxuu xiran yahay buu yiri furbal madaxii baan iska furay yani jaga ii saarneyd marka waxa uu yiri dee madaxan maxaa waaye fud baa ku jarane waxa ku yiri markaa soo baxay inaan soo jaraarabay si degdeg ah ku soo baxay yani waa hadal wax uun inaad dhahrid weeyaan si aad isku fikirsid ama madaxaaga wax ka sabayn toore lagaaga helo ama dhalo kadib waxaan ku yiri si degdeg ah ku soo baxay inaad ka soo jaro waan rabay inaan saartana ma rabin oo wax u saartay ii sheeg xaflad iyo waxa saaqib galayay sidaas darteed aan u saartay okay buu yiri tan waa bareer uu yiri wax bareer waa bareer ma aha buu yiri yar saaxiibka ay jira isaga yarsan iga yani jeega ma saaran jirin haddana dee markaan mudashada waa iska jiraya baan ku yiri okay buu yiri bas ka bax buu yiri aniga maanta waa ku jirtaa bas laakiin waa ka faktay ilaa markii qolada aan naxariista lahayn kadib baaritaankii sidii dadka qaar waa la wareystay qaarna waa la iska daayay oo ma uusan wareysanin midkii hore uu ka wareystay sidani baabuurka ku kornay oo inuu sii daayay waxaa runtii farxad ahayd labadaas baaruur keliya inaan kala furnay qolada argagixisada ahi kadib markaan kasoo dhaqaaqnay deegaano badan runtii baan soo marnay qofkii yani waxyaaba la yaabka lahayd qof markuu baabuurka saaraya baabuurka mila qaar bala istaajiyaa oo qofkii saxray iyo waxa saxiiso soo gudan karo saxdiis laakiin meel walba lama istaagi jirin qof uu dhoo basaray istaadeer aday ku taala bal dhigay baabuurka meesha ma istaagi karo yani absida dadka ku jirta awgeed kadib markaan soo dhaqaaqnay meesha kale falista badnayd aan dhihi karo riski ugu weyn ayaa ku gasheen ama riskiga labaad ee ugu weyn ayaa ku gasheen aan dhihi karo waxay ahayd qolo la yiraahdo gaali jecelku waxaan kula kulnay nasiib xumo meelaysan muddisho aysan ka dheerayn afgooye banaankeeda ayaan kala kulnay afgooye inta markaa soo dhaweyn ayaan la kulnay wayna istaajiyeen ilaa iyo waxay ahaayeen ilaa 7 qof inay ahaayeen maamo meesha taagnayd way jirtay gabro meesha ku arkay ayagana muuqaal iska duubay gaajaca ayagoo la istaagan intaan horta meesha soo gaarin gabadh baabuurka in la saarnayd
markii la yiri waa qasab in meesha gaajaalka la maro gabadha aad bay u naxday yani waxay dhahday neefta ay ugu xirmaysa baabuurka dariishadii way furnayd xitaa hawadii dariishada kasoo galaysay way daaguweysay yani mar ay dhahdo wadnaha ay xanuunaya mar yani isdaji baan ku dhahnay waa anaga dhan ku jirnaay isdaji laakiin iyadoo gabadh bay ahayd sidaas ayayna sidaas ugu muuqatay marka aan imaanay meesha gaajaalka anaga baabuurka ma aan kasoo degin darawalkii baa degay intuusan darawalka degin waxa u imaaday mid kamid tahay oo waxa uu ku yidhi lacagta ii duub marka mid kale oo meesha taagnaa isagana waxa uu yidhi aniga lacagta ii duub waa yaabnay warasay wax jiraan aniga haddaan lacagta ii tuuraynin halkan kama dhagaalays midkan wuxuu yidhi aniga lacagta ii tuuraysta midka saas dhahaya qaar baa la jira mid kalena qaar baa la jira yani laba group inay yihiin baad moodaa darawalkii anaga dhan waa naxnay darawalkii markaas baa uu yidhi war isaxaliyaniiho aniga hal qof baa lacag tuuri karaa lacag $15 marka ay rabeen ay dadka ka qaataan oo baad ah markii darawalkii saas la yidhi mid ayaa ka mid ah gaajaalka ayaa waxuu yidhi maxaa idinka qaldaniyo mid kale halkaa istaagnaa waa isla markiiba qori waa beestay mid kan qori waa beestay qoriyaal bishadaas waa beestay anagii waa naxnay baabuurka meeshuu taagan yahay saddex loo kala baxay mid kale oo asaga dhexdhexeeya oo midkii toddobaad ah meeshaasu taagan yahay markii dambe waxaan ku yidhi niyahu anaga nafteena riska gelina kaadiya yani darawalkii baa u qayliyey oo la hadlay yani maamo meeshiisa soo orday war maxaa idinka dhahay baabuurka waa safar waa waqti dambe yani intaan wadada kusoo jirnay baabuurku xitaa waa naga soo halaabay yani rafaad badan wadooyinka burburka awgi wadadu waa wadadii siyaad baranaysa qaarkood xitaa burbur awgi lama mari karo waa in lagu wareegtaa waa qasab rafaadka inagoo soo marnay wadadii aan kasoo dahnay oo aad usoo dahnay yani aad moodid ilaahi xamar maalmaadkii nafta inahayso caruur baabuurkay saaran yihiin maamo waayeliya baabuurkay saaran yihiin yani rafaad ay aad iyo aad ay rafaad u ahayd haddana meeshii markaan aan dhahnay muddo waa soo gaarteen 11 saac 12 oo wax yar dhiman ay ahayd waa filaa maqrabkii baa soo dhow weli afgooy maanan gaarin xer bay inoo harsan ay naga dhiman tahay markaas baa ii sheeg maamadii soo orday oo la hadlashay oo waxay dhahday dee maxay idinku dhacay kale ilaahay idinku ridee war daaya baabuurka markaas midkii dhexdhexaadiyaha la hadlay oo niyo lacagtii tuuradee waa kala goosanayna ii kalsoona midkii kale ii kalsoona uu dhahay yani lacagtii midkaasa loo tuuray saasaan meesha kaga soo dhaqaaqnay darawalka isagoo la sheekaysana wuxuu ii sheegay mar hataa meeshaan imaadeen in xabad la iskugu bilaabay asagoo meesha taagan nasiib daro si wanaag waxba maysan gaarin waana halista dhammaan dhulka Soomaaliyeed ka jirta waxaa ummadda Soomaaliyeed loo leenayo waxaas oo kale marka meesha ka soo dhaqaaqnay still waxaan islahayn yani amaad ka dhamaateen yani marka meesha ka soo dhaqaaqnay waxaan islahayn yani bes waaye markaan waa ka gudubteen laakiin waxa aan aadka ula yaabay marka inta rafaatay aan soo marnay waa kasoo gudubnay dalka waxa uun dowladda way ka jiraan yani kuwan waa la baabin doonaa ama waa la nadiifin doonaa islaha laakiin waxaan aadka ula yaabay markaan bulsho soo galnay in isbaarooyinka ugu badan ee aan halkaa kala kulannay ma ahayn isbaaro yani amniga sugda qaar way jiraan amniga sugaya laakiin waxaan la kulnay isbaaro gaaraya ilaa iyo 20 isbaaro waa 20 isbaaro bulsho gudaheeda aan la kulnay marka ilaahay markii waxaan soo galnay habeen 2 saac ah iyo baran meelahaas aan dhig karo ayaan soo galnay Muqdisho isbaaradii ugu horeysay waxaa layna qaaday lacag $2 miya $3 waxa say afil ah
wax yar markaa soo socotay mar walba aad wax soo socotay isbaaraa lacag lagaa qaadaa mar walba wax soo socotay lacag mar walba lacag lagaa qaadaa kuwaasi waa isbaarooyinka sharciyeysan ee dowladda kuma baarayaan laakiin lacag baa lagaa qaadaya markaan soo soo galnay isbaarooyinka lacagta way dhamaadeen markaa isdhahnay qaar waxaan la marka wadada waa qaar waa mugdi qaarna waa iftiin marka wadooyinka mugdi ku jirtid mid baa meeshan ka soo ordaya qurux ku cabaysanaya mugdi istaagan xataa ku leeyahay istaag yani isbaaradii sharciyeysan maaha mid meesha iska istaagay weeyaan mid meeshu ka soo socda wuxuu arkay baabuurkan ororono safar ah qurux markii uu cabaysanaya inta uu soo taa uu leeyahay markaas hadlo waabitaan uu dhahaa kadib alifkiisuna ma inuu amniga sugo alifkiisu waa inuu adigu dee lacag ka qaato markaas uu leeyahay $2 iyo turade isma laga hayst baaba ka shaqeeyay uu qasbaya lacagtu tuura waa la soo soona sidii markii baabuurkii ka soo degnay anigu waxaas laabis waa markaan u soo gashay daajo waxay soo saartay boorsadeedii waa soo baxay markaan imaaday goobtii baaritaanka boorsooyinkii waxay laga soo dejiyay mid marka amaamadii waxay waa iska furayo qortaan ku xirtay markaas buu igu yiri mid meesha taagan inta ka imaaday baydhawaan ka imaaday niyo baydhabo madaxa jeeda ku jirta sida wadada ku soo martay saacadana waa socdaa adiga waa ka shakiniyo ma ahan inuu amni sugo aniga waa ku sheegay kuwa loo hadafkooda ma inuu amni sugaan hadafkoodu waa in baad ay qaataan markaas antu yani gudka gacjeel baa lagu ridaa orni aniga jooji kaadi baan yiriniyo qof waxa ku sheegaysana may yani asku soonay baan ku yiri meesha geysanade hal had bay iga soo helays istaji marka aanku yani hadalado aan qabdaran ku ula hadlay buu yiriniyo $2 iyo tur aska baxaysaa $2 ma aan ku dhahay waan ku adkaystay sidaas uu sii deeyay marka meesha ka soo dhaqaaqay adiga isbaaro 20 gaaray waan la kulnay ilaahay amarkii laakiin dhamaantooda si nabad ayaan kaga soo gudubnay isla muddo gudaheeda 20 isbaaro gaar yani waxay ahaayeen qolo kaliya ka qaada lacag ka qaada ay ku tilmaamaan canshuur dhowr meelood qaarna dee xog ay balaga qaadayo mugdiga ku jiray ahaayeen runtii waxaan islahaa waxaad imaaday muqdisho meel dowlad ka jirta yani waxaan dareemay in nijab aad iyo aad weyn in dalkeena jibi ahaanba aysan ka jirin wax dowladda yiraahdo dadkii la rabay in cadowga ay tirtiraan ama baabiyaan in iyaga sida runtii aan kala kulmo waxay ahayd nijab aad iyo aad weyn waana aad baan ugu xumaaday waxaan ilaahay ka baryay in dalkeena dowlad aad wanaagsan yani cadaalad leh aan dadka dhacaynin bulshada dhibaatadooda fahanta inuu ilaahay dalkeena gacanta u geliyo inta ayaan ku keenay muuqaalkan. Assalaamu calaykum.